السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيدن لها لسه حليمة عمر، حليمة بريتش ورمتي عاوة يعني أرن كيابس أكو كلفتين فيديو غاسي صوت دوبته waxaan dhageystay anigoo gurigayga iska jooga salaadii cishaay ka baxay iska daawanaya Facebook-ga daqiiqada ka hor waxaan dhageystay oo arko indhahayga madartay soo jiitay Khadiija dibaanada ka soo jeeda dalka aynu jaarka nahay la yiraahdo Soomaaliya oo leh xildhibaankiina qaaliga ah xildhibaan Barkhad xildhibaankii Somaliland ugu codka badnaa gaari aan ku iibin lahaa $20,000 oo aan ku soo ururiyay Barkhado waan kala noqday oo lacag meesha tirtirna sidama baaqan waxa fahmi waayay lacagta ma guryaha lagu haystaa talo bangiyadii maxaa helay duniyada imika nidaamyo casri ah oo teleefankaaga yar baba laga maamulo account-yadaada kuwa gudaha ku leedahay kuwa dibadda ku leedahay baan ka maamulay waxa ban garan waayay lacag qaraadiis oo gacanta lagu hayo waa inoogu dambeysay in marka Khadiija waxaan ku leeyahay Barkhad uu ka sareeyaa in $20,000 lagu dholo tusto oo la yiraahdo maadaama Somaliland waxa ay xaq u leedahay aad sheegtay oo runtii sheegtay in $20,000 baan kala noqonayaa waxaan ku leeyahay Khadiija $20,000 hadda sida aan ahay meel baan fureen mooyaan dhulkii lagu iibinay baabuurta bari subax markuu waagu bariyo $20,000 waxaan kuugu ballan qaadayaa Barkhad inuu gacanta ku hayn doono $20,000 ya aniga oo Xaliimo ah bari toole waagu markuu bariyo ina farta ka saari doono Barkhad $20,000 ku oran maayo aniga bixinayo iyo cid baan ka soo ururinayo meeshan Somaliland baa la yiraahdaa $20,000 waxaan kuu sheegayaa bari waxa igu dharintu waagu bariyayo dhulkii madartay maxaan ku riday baabuurta lagu gadayay ama hadii uu dibadaha u diranayo Dubai wax la mid ah doonka sida uu jecel yahay Barkhad baabuur bad sheegaysaa waxaan u iibin karnaa barita subaxa ya 20 baabuur baan u iibin karnaa oo kala nooca Somaliland bana la yiraahdaa markaasi Barkhadna waxaan leeyahay Barkhadow oo degaarkee dadkaas aynu jaarka nahay waxaan u malaynayaa inaad ka sareyso islaan shilmadoon haba u jawaabin baan ku oran lahaa islaan hagoog weyn baa lagu saani gareeyaa shilmadoon bay hagoogantahay aniguna shilmad weyn baan hagooganahay kolka isku kaayada baan ku oran lahaa Barkhado adigu waad ka sareysaaba inaad dumarka sheekadooda soo gasho kabax inaguna wayna soo wada hadli doonaa insha Allah intaasan ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.